السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يوم ميلا جوكتان بوايدين سلامي waxaan rabaa inaan qiso yar idiin sheego ee qabsatoon arkay waxa la yidhi nin adduun ku noolow maxaa aragti ku laaban waxaan joogaa Amsterdam waa wadanka Holland waxaan rabaa inaan qiso yar oo geedkan ku saabsan idiin sheego geedkan iga dambeeya dad badan way garanayaan dad badanna kuma baraarugsana waa geedka Christmas tree la yiraahdo ama shajarada ama geedka Christmaska ay ugu tala galaan xilligan bishan 12aad iyo ciidaha gaalada geedkan marba waxaan muxaadaro u dhigay caruur magaalada gobolka Minnesota ku nool oo dugsi joogo oo tira badnaa waxaan weydiiyay shajara geed waxaad ii sheegtaan mu'minka oo kala ah oo rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam geedaha waxa ku jira geed mu'minka oo kala ah geedkaas waxa looga shabahay mu'minka khayrkiisa badan barakadiisa badan waxa badan nacfigiisa ayaa badan quraanka wax badan baa lagu xusiyaa sunnada waxa la yiraahdaa 22 jeer ka badan baa lagu sheegay marka waa geed aad iyo aad u qiimo badan marka waxa ay geedkan meesha ma oolin markaan ka hadlayo waxa ay geedaha waxa ku jira geed mu'minka oo kale oo aad u fiican marka waa la isfiiriyay waa laga wada hadlay wiil yar baa soo booday wuxuu yiri geedka mu'minka oo kale ihi waa Christmas tree waa geedkan loogu tala galay xilliga Christmaska halka waxaan rabaa inaan idiin sheego walwalka badan ee ku nool aabaha iyo hooyada ku nool wadamada reer galbeedka Yurub iyo Mareykanka waxaad ogaataan meesha hawshu ay gaarsiisan tahay in ilmaheeni ay yiraahdaan geedka mu'minka oo kale ihi waa geedkan la yaab male waa caruur yar yar waxay arkeen isagoo la sharfinayo isagoo meel walba la dhigayo isagoo oo la hagaajinayo isagoo la qurxinayo isagoo anwaar iyo waxyaabo ifa lagu xiraayo marka ilmuhu la yaab ma laha laakiin aabaha iyo hooyada dhalay ayay hawlo u taalaa ilaahay umuraha inoo fududeeyo qisadaas haddaan intaa uga baxo waxaan rabaa qiso kaloo xanuun badan iyadana inaan idiin sheego xilli laga joogo hadda 7 taqriiban baa waxa ay soo wacday hooyo Soomaaliyeed oo caruurteeda dhashay oo diin ku soo barbaarisay oo soo gabadheedii xijaabna soo xijaabtay quraanka soo bartay waxay ii sheegtay maamadaas in gabadheedii ay ku tiri hooyo waxaan la deganahay qof dumar ah waxaan nahay qoys baan nahay sida aad qoys dadku u yihiin baan nahay qoys u nahay waxay isku dayday maamadu inay arinta gabadha ka dhaadhiciso waxayna u sheegtay inaynan hawsha deyn kareynin inaynan suuragal ahayn haddaad igoynayso iyo haddaad hooyo ii noqonba anigu arinta ma deynaya bay tiri iyadoo oo waliba ku adkeysanayso oo cadeysanayso waxaan ku iribay tiri bal culimada aan weydiiyo inaad ila joogi karto oon xiriiri karno iyo inaynu sidaa ku kala tagno waxay tiri haddaabad wadaadda Soomaaliyeed ii weydiinayso oo aniga ay warsanayso halkaas baan ku kala tagaynaa taasna waxaan rabaa gabadhaadii waxa aad u cajab badan oo la yaab igu ah in la ii sheegay gabadha kale ee la nooshahay oo karkaarka weydaarisay oo iyada ka da'weyn dadka arkay inay labaduba xijaaban yihiin oo maarta dharkoodii ay qabaan wamaca dhalika haddana ay ku dhiiranayaan oo mid waliba leedahay anigana hooyaday way ogtahay reerkayagina way iga warqabaa arintiina caadi ay la noqotay waxaan rabaa marka waa maxay sababtaan u sheegi taasna waa xanuun badan oo u ducaynaynaa gabadhaas aan adeerka u nahay ee miskiinta ah Soomaaliyeed ee diinta lagu dhalay ilaahay baan u baryaynaa insha Allah waliba anigu hadda safar ku jira baan rabaa inaan u duceeyo rabbi subhanahu wa ta'ala inuu soo hadeeyo oo diinteedii iyo wadadeedii saxdeedu ku soo celiyo oo akhlaaq xumada iyo waxa dariiqa ay dooratay ka soo celiyo oo shayatiin al-insi wal jinni ilaahay ka badbaadiyo laakiin waxaan u sheegay waxa weeye waalidka mar labaad ku nool Yurub iyo Mareykanka hawlba inoo taala hawlba ku taala ilmihii aad soo barbaarisay ee quraanka soo bari jirtay inuu ku yiraahdo waa caadi arrintan ay tahay hawshuna halka ay marto waa hawl adag ogaada iyo raaliga ahaada intaasaan rabay inaan idin la wadaago waa mahadsantihiin jazaakumullahu khayran reer Yurub iyo reer Amsterdam وإذن سلامية إن شاء الله تعالى
في طريقي إلى نيروبي، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.